hagaag habeen wanaagsan soo dhawaada akhyaaray kulan kale oo xiiso badan oo muuqaaladii caafimaadka ee cilmi nafsiga barnaamijkii taxanaha caafimaadka muuqaalo ayaan idinkula wadaagnaa inta badan inkastoo nasiib darro ay isbuucyadii lasoo dhaafay ayna haystaa cilo xagga farsamada ah gaar ahaan Facebook akoonadii aan wax idinkula wadaagi jirnay oo ay la wareegeen qolaha karaysa inkastoo nasiib wanaag Facebook page-keena uu hadda nabad qabo oo gacanteena uu ku jiro balse akoonkii Facebook laga maamulayay page-ka laga maamulayay ayaa cilad naga qabsatay waxaana rajaynaynaa in isbuucyada lasoo socda gacanteena dib ugu soo noqdo haddii Rabbi idmo muuqaalka aan caawa idiin wadana waxaa in badan ka fikrayay sidaan idinkula wadaagi lahaa oo in badan sheekooyin badan iga soo dhex martay bulshada dhexdeeda iyo anoo laftirkeyga ku kor istaagay waana wax afka qalaad lagu yaqaano misdiagnosis iyo mistreatment waa laba wax oo isla socda oo ah marka ugu horeysa qofka bukaanka in xanuun uusan lahayn lagu sheego ama lagu diagnose gareeyo ama lagu ogaado oo la yiraahdo xanuunkaasa qabta mana uu qabo kadibna laga daweeyo xanuun uusan qabin laga daweeyo caalamka oo dhan way ka jirtaa ciladan oo maadaama aqoonta caafimaadka ay tahay wax aad u guda ballaaran oo qofka uusan soo koobi karin haddana khibradana ay tahay wax ku xiran laftirkeeda iyo mas'uuliyadda laftirkeeda iyo akhlaaqiyaadka qofka dhakhtarka ah waxyaalaha saldhig u noqonaya ay tahay haddana iyadoo ay caalamka oo dhan ka jirto ayaa gaar ahaan Soomaaliya dhibaatada bulshada gaaraysa ay aad u badanaysa marka way si kala dhib badan tahay marka xanuunka lagu khalday inaad qabto uu yahay xanuun sahlan oo dawadii lagu siiyay dawo aad ka kabsan karto iyo marka ay tahay dawo dhib badan oo adigana dhibaato ku gaarsiinaysa sidoo kalena wax noloshaada saameyn dambe kugu yeelanaya ay noqoto way ka dhib badan tahay tusaale haddii matalan waxaa jirta oo in badan aan arkay qof in xanuun lagu sheego uusan qabin dabadeedna qaliin lagu sameeyo marka qaliinka la sameeyana loo tago waxaan qaliinka wixii loo sameeyay waxaan ahayn inay meesha ka jiraan taas marka waxay noqonaysaa dhibaato marka qaybtood waxaa marka ay sababtu noqonaysaa marka inay mas'uuliyad darro tahay waxaa loo baahan yahay qofka in la xaqiijiyo inuu xanuunkan uu qabo qofka waxyaalo badan ayaa loo sameeyay oo caalamka uga badbaadaa laguna yareeyaa dhibaatadaas macnaha in lagu khaldo qofka inuu xanuun uusan qabin waxaa ka mid ah waxaa la sameeyay baaritaano aad u fara badan waxaa la sameeyay mashiino aad u fara badan oo qaali ah qaarkoodna aysan Soomaaliya oolin balse mashiinada Soomaaliya laftirkeeda yaala si fiican looma wada adeegsado oo waxaan ka warhaynaa qofka marka qaybtood inuu inta wixii loo boobsiiyay in qaliinka hore laga geliyo sidoo kale aqoon darro way keentaa marka qaybtood oo aqoon darrada laftirkeeda way ka qayb qaadanaysaa marka arintaas marka waxay tahay arin bulshadeena saameyn ku leh oo runtii xaqiiqatan marka aragto marka qaybtood aad la yaabaysid waxyaalaha la khaldayo oo mas'uuliyaddaas inta badan waxay ku noqonaysaa dhakhtarka sidoo kale bulshada laftirkeeda waxaa la rabaa inay wacyigooda kor u qaadaan oo waxaan garanaynaa adduunka qofka marka xanuunka lagu sheego xanuunkaas ayuu wixii calaaqa leh oo dhan u akhrinayaa macluumaad fara badan ka raadinaya marka uu macluumadaas ka raadiyo haddii marka shaki uu ku jiro dhakhtarka lagu tagayaa oo dhakhtarkaas second opinion wax la yiraahdo dhakhtarkaas marka hadduu uu dhacay misdiagnose ama khalad xagga xanuunkii la khalday in uu qofkan qabay dhakhtarkii labaad u tagtay ayaa saxaya inuu sidaas tahay inaysan ahayn marka waxaa loo baahan yahay bulshada laftirkeeda inay aqoontooda kor u qaadaan oo xanuun kastoo lagu sheegay inaad iskala ordin dawadii iska qaadan balse loo baahan yahay inaad ma qabtaa horta xanuunkaas calaamadaha lagu sheegay sax ma yihiin ma iswaafaqayaan xanuunkii dhakhtarka uu sheegay iyo waxa jira taas marka waxaa loo baahan yahay laftirkeeda haddii aad aqoontii aadan garanayn laftirkeeda inaad la tashato dad kale oo caafimaadka ama ehel u ah
ama kuu dhow oo qaraabadaada ah ama sidoo kale dhakhtar kale laftarkiisa aad xiriir la samayso haddaad ka shakiso inuu xanuunkii aad qabto khaladaadka ay soomaalida sameeyaan waxaa ka mid ah dhakhtar bay u tagayaan dawo way ka qaadanayaan way cunayaan isbuuc bay wadayaan dawadiiba ama waxbay ku socon weynaysaa way iska dawadii macal warqadii wixii o dhan way tuurayaan dhakhtar horolaa bay u tagayaan xanuun cusub macnaha iyagoo raadinaya ama dhakhtarkaas raba inay imtixaamaan wixii hore ma soo sheegayaan dhakhtaraa horaa u tegey saana ciladeeda ahayd historygi ma dhamaystirayaan marka intaasa qofkii marka dhakhtarkii cusub markaa u tagtid sidoo kale qof cusub ahaanu kuula tacaamulaya oo xanuunkii macnaha iskuma xirayo sheekadii hore iyo sheekadan isuguma xirna sababta maadan u sheegin marka taa laftarkeeda cilad ayay bulshada haysata ayay ka mid noqonaysaa balse inta badan arrintan waxay xil ka saaran tahay dhakhaatiirta oo loo baahan yahay inay aqoontooda kor u qaadaan mas-uuliyadooda ay hagaajiyaan akhlaaqiyaadkooda caafimaad ay ka fekeraan mara qaybtood dhakhaatiirta waxay ka fekeraan dhaqaalaha keliya ayay waxay sameynayaan qaliin aan bukaanka u baahnayn in badan ayaan aragnay taas waxaan u baahannahay marka arrintaas in bulshadana ay wacyi ka yeelato oo bulsho baraarugsan ayaa dhakhtarkoodana u baraarugayaa laakiin bulsho hurda dhakhtarkiis waxba yani isaga laftarkiisa wuxuu iska noqonayaa bani aadan dadkii uu ku nool yahay la nool intaas ayaan rabay muuqaalkeena inaan uga hadalno caawa insha Allah waxaan rajeynaynaa inuu taxana noo noqdo isku xigo oo aan soo kabno isbuucyadii la soo dhaafay oo aan hawada ku kala maqnayn. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.